إن شاء الله maanta weekend waxaan rabaa in aan ku tusiyo qaabka maalinkeyga axadda ah noqon doonto. Asalaamu calaykum, Ahmed Ibrahim kusoo dhawaada maalin kale oo qurux badan oo aan rabo in daily vlog la sameeyo, daily live of forex trader. إن شاء الله maanta weekend waxaan rabaa in aan ku tusiyo qaabka maalinkeyga axadda ah noqon doonto. runtii maalin dheer ay noqon doonaa, qurux badan saa rajeynayo. sidoo kale halkan waa xilliga saacadda fiirisid waxaa weeyaan 12 iyo 27 daqiiqo. waa xilli subax ah, markaas aan rabo in aan sidoo kale shaashada aan fiirsado chatska iyo sidoo kale trading markaas aan qaatay. Yeah, it's gonna be a very long day noqon doonta. marka guys, sidoo kale waxaa jirtay lacag isbuucan laba trade aan qaadanay. trade kamid ah horteedu yaalo oo ah AUD CHF. sidoo kale trade kale jira sana NZD USD sales aan qaatay. labada trade baa ardayda u dirisa mar walba idin sheego. marka trade-daas waxaa ka sameeyay total of $1,500 alxamdulillah. some of you lacag badan maahan, but to me samar walba sheego I appreciate small things because waxaas ay hadhow waxay ii sameynayaan in $50,000 hadhow aan markaas profit ku helo. marka anyways, yeah, it's gonna be a very good day. Okay guys, sida aragtiin trade isbuuca waa kuwaas labada trade aan qaatay oo ahaa NZD USD sales ah iyo AUD CHF sales buy I mean. pretty much low risk ay ahayd $1,500. dad qaar ay leeyahan start like you used to make 3,000 4,000 but then maxaa kugu dhacay. guys, let me tell you something. isbuuc walba ma ahan isbuuc yani kaashal umaleynaysid micnaheeda maahan kan soo socdana inuu kan shalay ka fiicnaan doono ama islimida noqon doono. sometimes marketka wuxuu ku jiraa environment oo ah in risk conservative as mayso riskiga markaas si fiican exposure ka suuqa dhigaysa inaad si fiican ugu fikirtid. muhiimadda haddii aad ka dhigatid focuska lacag, that means waa khasaari doontaa. marka insha allah hadal badan igu daalin. hadda waxaa hortaagana shaashada oo ardayda markaas waxaa u sameyn doonaa weekly recap oo trade-da qaadanay general aad dul mari doona. sidoo kalena qaladaad haddii ay jireen ama wax in la saxa ay jireen aan ka boodnay, sidoo kale fursadahay markaana dhaafay. intaas shay ayna dul mari doonaa oo ardayda markaas u sharxi doonaa. la daawado iyo buug maanta la akhriyo iyo qof afkiisa la dhageysto forex markay ma gaari kartid. saa forex mar uu gaarto waxaa u baahan tahay shaashadaada iyo mar walba in gacantaada isla qabsadaan oo ah in mar walba testingkaada high level uu taagan yahay. sababtoo ah marka wax baranaysid macallimiintu waxay ku leeyihiin waxaa u baahan tahay in buug badan aad akhrisid, revision badan aad samaysid. laakiin forex way ka duwan tahay, skill ka duwan waay. skill waxaa weeyaan aad u baahan tahay in markaas shaashadaada time badan aad gelisid. personally 16 hours maalin walba screen ka geli jiray. so don't think in muuqaaladan badan oo YouTube ka yaalaan iyo lagu dhex wareerayo inaad horumar gaari kartid. weydii dadka horeyso 3 sano 2 sano forex ku jiraan weli horumar ka gaarin. waxay ku leeyihiin buug walba waa laqnay, muuqaal walba waa laqnay, notes haysanaa, maalin walba xafiiskayga imaadaan dhalinyaro markaas suuq cabaar ku jirto, haddana still suuqeeda natiijo ka taabilayan. sababtoo ah backtestingkooda ayaan markaa backtesting soo gudubtidna waxaa u baahan tahay in psychology ahaantaada iyo maxaa la yidhahdaa disciplinekaada inaad on top ka dhigi kartid. laakiin stage walba 3 stage aa jirta. stage koowaad waa learning process, wixii aad baranaysa. markaas learning process markaa ku jirtid waxaa u baahan tahay shaashadda iyo adiga inaad isku mid noqotid, inaad walaalo noqotid. mar walba aad seexatid, aad soo kacdid, shaha cabaysid, in screenka kor yaalo. maanta dhan backtesting iyo muraajaca ku jirtid. laakiin muuqaal daawas iyo buug la akhriyay iyo note la qorto intaba waxaa horumar iyo macnaha weyn aad ku gaaraysa ma jirto. marka insha allah isla socod wanaagsan guys. that's it. yeah, that's it.
سو عررنا بقى الحمد لله واني معنا لكن وحصوفرنا بور حدي أفوشي أوغاني سيد لا تنجر نمدا إنها تهاي لحنجر أفهم سمان so I think I need to drink a lot of malab and water to get some energy. So why معنا الحمد لله laptop on a weekend no how do I just finish it down but for now let me keep it inside. Okay also فأنا كنت صار لي قاعد waxaan inaan laba shay ku sheego oo ah si walba oo markaas nolosha ku adkaato has dhiibin because trading waxa ognahay inuu yahay wadada ugu adag oo qof maanta horumarka ay gaari karo sidoo kale ay tahay wadada ugu fudud qof maanta horumarka ay gaari karo sabab ay marka ay u adag tahay waxa kamid ah in qofka shakhsiyan asigu inuu isbarto psychology-giisa discipline-kiisa grade-kiisa iyo emotion-kiisa intaba inaa meel ku qori kartid sidoo kale sababaha markaas ugu fudud waxay tahay in adigoo meelaha saano kale qurux badan iska trade gareynaa then hadhow lacagtaada si fudud markaas ay ku yimaado laakiin wadadaas sidaa ku gaari lahayd waxay u baahan tahay inaad soo martid wadada koowaad oo ah cilmigii together with emotionskii sida loo xakameeyo markaas because runta hadii laga hadlo forex way qurux badan tahay way lacag badan tahay way stress yar tahay haddii kaliya aad raacid wadada markaas lagu talagalay halkan waxaan ku fiirinaynaa trade oo markaas aan qaadanay oo ahaa AUD CHF oo ardayda eeg dhan wada diray trade-kan runtii wuxuu ahaa trade qurux badan oo qaabkii u qaatay qaab yani buy fiican markaas oo trade ku baxay trade-kan waxaa qorsheynaynay maalmihii la soo dhaafay waxaan fiirinay isniintii talaadadii arbacadii khamiistii ayaa inter ka qaaday so personally sayid kartid waxaan sameeyay lacag $1500 trade-kan ay ka sameeyay ardaydana u diray markaas eegin lacag ka sameeyeen oo sida muuqaal geeska ay kartid waa aniga markaas ku jirno marxalad oo ii sheeg sharing ah oo profit-ki markaas aan sameeynay ku farxeen marka trade-kan buy qurux badan ayuu ahay buy-ganna waa qorsheenay isniinta ay qorsheenay waana filaynay waana sii degsanay kaliya waxa sugaynay timing-ka because trader marka tahay timing-ka waa very important trade-ka in waqtigiisa aad ku beegsan kartid inaan suuqi ka horgalin inaadan ka dib dhicin move-ki iyo volume marka suuq gala aadina inaa markaas la geli kartid layskii isbuuca waxa ku qaadanaya meeshan so fun guys like qol yar waxa jirtay aan ku jiri jiray markaas oo aan layska ku sameeyay jiray 6 years 5 years back and now look at the view meeshan qurux badan ay xaro ana ku sameeysto weekly analysis outlook-ga meeshan ay ku sameeysanaya meel qurux badan nafta u mac I can't believe guys wax walba loo diyaaro waa helaysaa because 5 years back hadii aku tireen lahaa maanta shaqaale ahaa lahaa $100 shaqaale طبعا ما شقيلها ما نفط يمسها محنة مالنا عنو كلنا ما still dadka qaar waxa laga yaabaa inay arkeen inay big taa but anad waxa ahay waxyaabaha yar ka tahay still appreciate sidoo kale adduunka waxa wax yar marka consistency u sameeyay you still become that man nolosha noqonaysa for example ka $20 isbuuc sameeysa $20 hadii aad consistency u sameeysid yeah you become dirina waxa sameynaysa $200 consistency sameynaysa maalinta ku xigtana sameynaysa $20 saas dawladna oo kor lagu gaari karo waxay tahay waxyaabaha yar yar ah in markaas aad joogteen kartid marka hadii hadda qolkaaga yar aad ku jirtid jooriga isku saaran tahay leer la'aan aad tahay internet aad iska bixi karin laga yaabaa hataa in isku shaqo meel kale aadaysid nolosha ku wada kala waqti waxa cuntid like I got you my brother my sister I really got you has been maalmaha kamid ah insha Allah noloshan hoosteeda imaan doonta nolosha waxa raja ama guul ka gaaro qofkii u dadaalo qofkii u maraa wax walba ay ku qaadanayso horumar ku gaaro hadii ay ku qaadanayso horumarka inaad gaarto wax inaad 10 saac kacdo habeenkii inaad 5 saac ma saacad ama 6 saac ma saacad in habeenkii 2 saac ka saacad in lacagtaada dhan aad meel ku gelisid oo waxbarasho aad ku gashay in like wax walba ay ku qaadanayso in horumar aad ku gaartid as deep samee because
qof walba meesha maanta joogo oo meeshaan maanta dadka aan la socdaa ha ahaadaan dadka ha noqdaan ii sheeg maxaa la yiraahdaa meesha iska imaanaa ama ninka meeshaas kale waxaa jirta hal qaacido dhammaantood ka wada sameeyeen oo ah qof walba wuxuu soo maray marxalad adag laakiin qof walba uu soo gudbo aniga kula hadlaa qashinaa gadi jira yani storygaas hore uu sheekay podcast soo daa ukuna gadi jira saasay tahay family xaq soo jeeda middle family ama yani inaa ukun gado nafteeda kuma sistan gareyn karin yani still waxa cunaa waa cabay laakiin ana ma xaaray maxamed ahaan inaa samaysto nolol ay gacanteeda ku bilaabo aan iskuul qofka bilaaday mar qaar inuu isdiro Israa'iiliga waxay dhahaan ku jituma qofka inuu asi isdiro meel isgaarsiiyo isdhibo israfaa yani rafaadka wax walbo ay ku qaadinayso wadada kusii soo gaar la'aan ku gaar marka waxa ku leeyahay hasliibin noloshu macdahay waliba nolosha marka struggle ku bilaawato dhamaadkeeda macdahay clean macaankaas waxa dhici doona qof aan isliibin ya hadda maxaa sameyn karaa nothing else la tolka daarintaas ka dhiganaa waa iska seexanaa because it's so deepin yes that's joke aside laakiin hadda maankaas deep lahay sabriga geeska arkartiin waa anigoo depression ku jiro oo trade lose gareena akoon gubaa laakiin maalinkaas hadda akoonkaas oo iga guban lahayn maalinkaas akoonkaas aan gubi lahay as markaas aan isdhiibi lahay maanta viewgan quruxda badan ay arkaysiin kablaanta meesha isku dul saarnaa saa ku sheeg aan qof waxa ahay wax walba oo yiris appreciate gareena even saacadii hadda $1 ay tahay I will still appreciate because halkaas doo waxay qof aan xiisan $5 amaanta wax ku cuna waxaa jir qof aan xiisan oo u dagaaltama $5 soo ku helay because ani marka aan kunta gadahay fikirkayga guud wuxuu ahay ku sameeyay maalin walba $100 lacag Kenya markaas $1 la mideen like how can I make $1 every day and now the life is totally complete what different wasla faan samaan Soomaaligaas da ku fikir leen hal maalin $1 Soomaali ku jirtay lahay maanta meesha taagnaay mistaagnayn birina meesha u socdo ma gaaray guys insha Allah giving up is not an option